su-aasha 68aad saa'ilkan wuxuu leeyahay shiikhow waxaa jirta maamo aan ehelnahay waa maamo waayeel ah waxayna ka diiwaan gashan tahay 2 wadan waxayna ka kala qaadataa mid walba lacag ee shiikhow lacagahaasi xalaal baa hadday ku ogaadaan ma ku siinayaan wadamadaas hadday labaduba ku og yihiin oo xaggan inaad ka qoran tahay xagganna ka qoran tahay labadubana saa kugu siiyaan ahlan sahlan laakiin warkaasi war jira maaha ya ruux meel ka qoran meel kalena ka qoran 2 meelood lama siiyo waxbaa la kala qarinaya waa kala dhuumanaya xaggaana hawl baa lagu joogaa xagganna hawl kale lagu jooga sidaas daraaddeed labada dawladood baa la khiyaamaya ya tanna ruux kale la isaga dhigaya tanna ruux kale la isaga dhigaya ama waa la kala qarinaya markaasoo kale waa khiyaano iyo been wax ku yimid mana banaana sida wixii lagu qaato ama magaca ruux lagu qaato ama magaca shakhsi isaga ku qaato beenta iyo khiyaanada iyo laqdabada wixii ku yimaado shariicadeenu ma ogol laana gaalna been iyo khiyaano looma sheego muslimna looma sheego inna allaha la yuhibbu al-kha'inin wa khiyaano wallahu a'lam